asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh. dabcan waxaan dhammaanteenu wada maqalnay magaca haaruut iyo maaruut. dhammaanteennuna waxaan u xiise qabnaa in aan ogaanno qisadooda. qisadan haaruut iyo maaruut waxay ka mid tahay qisooyinka ugu xiisaha badan ee ku soo arooray qur-aanka kariimka ah. waxaa ku jira dhacdooyin aad u layaab badan oo ay ku adag tahay caqliga bani aadamka in ay suuraystaan. ma waxay ka mid ahaayeen malaa'igta mise waxay ahaayeen bani aadam? maxay tahay xiriirka ay la lahaayeen sixirka? maxayse dadka u bari jireen iyagoo og inuu yahay gaalnimo? muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan. daawasho wacan. balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. haaruut iyo maaruut waxaa laga wariyey dhowr qiso, balse 2 qiso oo ka mid ah qisooyinkaas ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. midi waa qisada saxda ah, midda kalena waxay ka mid tahay qisooyinka israa'iiliyaadka, taasoo aanan la garanaynin saxiixnimadeeda. midda dambe ayaan ka bilaabi doonaa, kadibna waxaan ku xijin doonaa qisada dhabta ah ee ay isku raaceen culimada iyo owliyada islaamka. waxaa la yidhi, kadib markii malaa'igtu ay aragtay kharibaadda bani aadamku ay ka wadaan dhulka iyo fasahaadka iyo macaasida ay bani aadamku galayaan maalin walba, ayay waxay alle subxaanahu wa tacaala ku dhaheen, yaa rabbanaa, bani aadamka waxaad u abuurtay in ay adiga ku caabudaan, balse waa kuwan kugu caasinaya, dhexdoodana isdilaya, tuugnimo iyo zino iyo faaxishana la imaanaya. siday sidaas ku samaynayaan iyagoon kaa xishoonaynin oo aanan ka baqaynin ciqaabtaada? markaas baa waxaa malaa'igtii lagu yidhi, idinkuba haddii aad booskooda joogi lahaydeen waxaad samayn lahaydeen waxay samaynayaan oo kale. markaas bay malaa'igtu dhaheen, xaashaa lilaahi, alle kumaanan caasin lahayn. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala ku yidhi, 2 malag iska soo saara, aan aragno runsheegistiina. markaas bay malaa'igtu iska soo doorteen 2 malag oo kala ah haaruut iyo maaruut. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala labada malag ku soo dejiyey dhulka, kadibna wuxuu ku abuuray jacaylka shahawaadka sida dumarka iyo xoolaha iyo waxyaabo kale. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala si la mid ah bani aadamka 2dan malag siiyey xorriyadda ikhtiyaarka, taasoo malaa'igtu aysan lahayn. waxaana laga qaaday macsuumnimadii ay malaa'igtu macsuumiin ka ahaayeen dunuubta, yacni lagama dhigin kuwo macsuumiin ka ah dembiyada. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku amray in ay isaga keligiisa caabudaan oo ay ka fogaadaan macaasida iyo khamriga iyo sinada iyo dilkaba. waxay haaruut iyo maaruut alle subxaanahu wa tacaala caabudayeen muddo dheer iyagoon ku caasinin, waxayna dadka dhexdooda ugu caanbaxeen xikmadooda iyo wanaagooda. waxayna dadka ugu kala xukumi jireen qadaayaadkooda iyo khilaafyadooda. intaas kadib wuxuu alle subxaanahu wa tacaala 2da malag u soo diray haweenay aad u qurux badan si ay qadiyad ugu xukumaan. balse waxay 2da malag jacayl xaddhaaf ah u qaadeen haweenaydan. markaas bay dooneen in ay la sameeyaan gogol dhaaf xaaraan ah, balse waxay haweenaydaani ugu shardisay in ay la caabudaan ilaaheeda si ay iyana ugu oggolaato waxay doonayaan. markaas bay waxay ku dhaheen, yaa waaye ilaahaaga? kadibna iyadoo tilmaamaysa mid ka mid ah sanamyada ayay ku tidhi, ilaahayga waa kan. 2dii malag waa ay diideen in ay sanam caabudaan, wayna iska dhaafeen rabitaankooda, waxayna u toobad keeneen rabbigooda subxaanahu wa tacaala, waxayna ku laabteen wanaaggoodii. muddo yar markii ay sidaas ahaayeen ayaa waxaa ka tambatay jacaylkii ay haweenaydaani u qaadeen. markaas bay mar kale ku laabteen haweenaydii, kadibna waxay haweenaydii ku shardisay si ay nafteeda isugu dhiibto in ay sameeyaan mid ka mid ah macaasidan soo socota, in ay ilaaheeda la caabudaan, ama in ay naf dilaan, ama in ay khamri cabaan.
markaas bay waxay doorteen cabista khamriga, kadibna waa ay isku dhiibtay nafteeda. markaas bay ka sinaysteen, waxayna galeen faaxishadii laga xarrimay. iyagoo xaaladaas ku sugan ayaa waxaa soo maray qof bani aadam ah. markaas bay ka baqeen inuu kashifo sirtooda oo uu dadka u sheego wixii uu arkay. markaas bay naftiina dileen. markii ay daroogadu ka baxday jirkooda ayay ogaadeen in ay galeen dembiyo badan. markaas bay go'aansadeen inay samada aadaan oo ay sidoodii hore ku laabtaan oo ay noqdaan malaa'ig macsuumiin ah, balse ma aysan awoodin inay sidaas sameeyaan. daahi ama daboolkii u dhaxeeyay iyaga iyo ahlu samaaga ama malaa'igtii kale ee samada ku sugnayd ayaa laga qaaday. markaasay malaa'igtii aragtay waxay galeen oo dunuub ah, waxayna ogaadeen qofka qaybka ku jira in alle ka cabsigiisu uu yar yahay. xilligaas wixii ka dambeeyeyna waxay bilaabeen inay dadka ku sugan dhulka dembi dhaaf alle uga baryaan subxaanahu wa tacaala. kadib markii haaruut iyo maaruut ay galeen dembiyadaasna waxaa lagu yidhi, kala doorta cadaab adduunyo iyo cadaab aakhiro. markaas bay dhaheen, cadaabka adduunyo waa mid dhammaanaya oo tegi doona, balse cadaabka aakhiro waa mid aanan dhammaad lahayn. sidaas darteeda ayay waxay doorteen cadaabka adduunyada. markaas baa waxaa la geliyey baabil, halkaasoo lagu cadaabayo ilaa iyo qiyaamaha iyagoo lugaha ka xirxiran. qisadan qaybtan aan soo sheegnay waxay ka mid tahay qisooyinka israa'iiliyaadka, mana ahan mid ku sugan kitaabka iyo sunnadaba. waa qiso aad u layaab badan, balse sida uu maluhu u badan yahay waa khuraafaad la iska aliftay oo aanan waxba ka soo qaad lahayn. balse riwaayadda kale ee laga wariyey qisadan haaruut iyo maaruut waa sida tan. xilligii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam waxay shayaadiinta iyo jinnigaba war ka soo xadi jireen samada. markaas bay kula soo laaban jireen dhulka, kadibna waxay u sheegi jireen xulafadooda oo ah dadkii alle subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay. waxay soo maqlaan ayay waxay ku dari jireen hadal jeebkooda ah, waxayna samayn jireen sixirka, ilaa dadku ay u maleeyeen in saaxiriinta iyo jinniga ay og yihiin qaybka oo ay awood u leeyihiin waxyaabo dadka kale aysan awood u lahayn. waxayna dadkii u maleeyeen in nebi sulaymaan calayhi salaam uu saaxir yahay oo uu alle subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay, oo uu sidaas awood ugu yeeshay adeegsiga xayawaanaadka iyo sakhiraadda dabaylaha iyo shayaadiintu in ay u adeegaan. balse waxay ahayd malo gebi ahaanba xaqiiqada ka fog. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut. sulaymaan ma uusan gaaloobin, balse waxa gaaloobay waxay ahaayeen shayaadiinta markii ay dadka barayeen sixirka. yahuudduna waxay raacday sixirkii lagu soo dejiyey labada malag oo kala ah haaruut iyo maaruut, kuwaasoo ku sugnaa meesha loo yaqaano ama loo yaqaanay baabil oo ku taallay ciraaq, ayuu alle subxaanahu wa tacaala yidhi. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qoomkan ku soo dejiyey laba malag oo kala ah haaruut iyo maaruut, si ay dadka ugu kala caddeeyaan waxa ay arkayaan inay yihiin sixir iyo in kale. in ay dadka u kala caddeeyaan sixirka iyo zabuurka iyo kalaamka alle subxaanahu wa tacaala iyo kalaamka nebigiisa sulaymaan calayhi salaam. balse waxay haaruut iyo maaruut dadka qaar bareen sixirka si ay u tusaan in uu yahay wax la barto oo barasho lagu gaaro, balse uusan ahayn waxyi ama cilmi samaawi ah. balse labada malag ammaanadooda waxaa ka mid ahayd in ay baraarujin jireen qofkii raba in uu ka barto sixirka ka hor inta aysan barin. waxayna ku dhihi jireen, waxaan nahay fitno iyo imtixaan xagga alle subxaanahu wa tacaala laga soo diray. sixirkuna waa gaalnimo, sidaas darteeda waxaan kaaga digaynaa inaad alle subxaanahu wa tacaala ku gaalowdo.
qofkii markaas iska daaya oo ka hara waa uu badbaadsaday naftiisa, balse qofkii aqbala gaalnimada oo aanan u aabba yeelin waxay barayeen noocyo ka mid ah sixirka oo dadka dhibaato u geysanaya, sida kala geynta nin iyo xaaskiisa iyo kuwo kale. Allana subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa innamaa naxnu fitnatun falaa takfur fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: labada malag cidnama aysan baraynin sixirka ilaa ay ka dhahaan innagu waxaan nahay fitno iyo imtixaan ee ha gaaloobin. Kadibna waxay qofkii ku adkaysta wax ka barayeen sixirka, sida wixii ay ku kala geyn lahaayeen nin iyo xaaskiisa oo kale. Balse saaxiriintu cidna kuma dhibaateyn karaan sixirkooda ilaa cidduu Alle subxaanahu wa tacaala doono mooye. In badan oo dadka ka mid ah waxay doorteen barashada sixirka, balse sixirka iyo keyrkiisuba awood uma laha inay dhibaateeyaan dadka hadduusan Alle subxaanahu wa tacaala u oggolaanin. Qofkii Alle subxaanahu wa tacaala tala saarta oo Qur'aanka kariimka ahna dhufays ka dhigta, wuxuu ka badbaadayaa sixirka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee sharta. Taasna waa qisadii Haaruut iyo Maaruut oo aan ka soo qaadanay riwaayadaha ugu saxsan ee ku soo arooray. Waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.